بسم الله الرحمن الرحيم. mahad ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala walaalayaal naga dhigay dad walaalo ah kuna bahoobay diinta islaamka. waa labada muuqaal waxaan ugu talagalay caawa dadku inay ku ogaadaan dhibaatada aan ugu jiro inaan ummadda muslimiinta ah ku anfaco aayaadka ilaahay. maxaa yeelay go-aanada ay gaareen dadka camalkan hortaagan ee diidan adiga in qur-aanka ilaahay lagugu akriyo, go-aanadooda ugu weyn waxa weeyaan inaan shaqadan ka tanaasulo, iskana daayo, ummaddana aan u noqonin madow istaagay. camalka ruqyada walaalayaal sidaad wada ogtihiin waa shaqadii ambiyada weeyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu ka dhigay afdalu acmaal ama afdalu jihaad ayuu ilahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala. qofka muslimkaana waxay ku tahay waajib ayay ku tahay inuu ummadda qur-aanka ku akriyo ugana gargaaro shayaadiinta, sida nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam inoo tilmaamay unsur aqaaka daaliman aw madluuma, u gargaaro walaalkay hadduu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahay. marka uu gar daran yahayna af iyo adin baad ugu hiilanaysaa. marka laga gardaran yahayna walaalayaal waxaa weeyaan gacantaad qabanaysaa. marka laga gardaran yahayna waxaa weeyaan af iyo adin baad ugu hiilanaysaa. markuu gardaran yahayna gacantaad qabanaysaa. marka camalkan waxaa weeyaan waa unsur aqaaka daaliman oo madluuma. dadka maanta walaalayaal waxaa weerar ku ah shayaadiin insi iyo jini ah, sida maaragtay dadka aad aragteenba loo sixray ama maxaan ku yidhahdaa walaalayaal isha ummadda ay uga daashay, ama maaragtay walaala jinnigan khaa-inka ah ee daalimka ah ee arada rogay uu u qabsaday gabdhaheenii. maanta ugu dambeysay aabe ayaa gabadhiisa ii keenay, jin baa ka dhex hadlaya, wuxuu leeyahay naagteydii weeyaan, waxaan ahay yahuudi, marka gabadhaa naagteedii wey buu leey naagteedii. marka sida gabadhaas oo kale walaalayaal in loo gargaaro oo cadowga laga celiyo, af iyo adinba loogu hiliyo ayaa munaasaba. shaqadana walaalayaal ambiyada shaqadoodii weeyaan ay qaban jireen. qofka shaqadan bilaabaana waxaa weeyaan ummadaasu ka riday maaragtay faradulcaynkii ayuu ummadda ka riday. qofka shaqadaa qabtana waxay ku noqonaysaa waajib bay ku noqonaysaa cimrigiisa inta ka dhiman inuu wado. waxaa marka laygu haystaa aniga adiga inaan qur-aan ku saaro, inaan sixroole ahayna way ogyihiin, dhiigayga inuusan banaanayna way ogyihiin, inaan ummadda waxu dhimanna way ogyihiin, qof aan dembi ka galin inuusan jirana way ogyihiin. laakiin maxaa galay masiir ayaa galay masiir. dumarka walaalayaal laysla qabo marka laysku ag sheego oo ninka uu yihahdo naagteeda heblaayo, ama xitaa uu ku qaldo uu yihahdo heblaayoy, dee waad garanaysaa ninkaa waxa qabsanaya. maxaa yeelay dulmi ayaa kasoo daahirayo xaaskiisii ayuu naago islaameed ku qalday. markaa ninkaasi naagtiisa ama biyo inay u karkariso ama madaxa bir kaga dhufato qarka u saaran yahay. marka wadaadada waxaa dhagahoodii ku batay sheekh cabdilxaq sheekh cabdilxaq sheekh cabdilxaq sheekh cabdilxaq. markaa masayr baa galay walaalayaal, masayr baa galay. horeyna waan u sheegay, waxaan idhi wadaadka hadduu masayro maxaa lagu masayrtiraa? gabadha masayrtay gurigaa laga bedelaa, deedna dahab baa loo gadaa, ninkeedana wuu ka qosursiiyaa. laakiin ninkan wadaadka diinta sheeganaya masayray maxay maarata maxaa loo qaban karaa walaalayaal? maxaa loo qaban karaa? see lagu masayrtiri karaa? adigaa lagaa doonaya inaad kasoo jawaabto. wax walbay ku masirtirmayaan, maxaa yeele naar bay ku gelayaan. anigu saacad baan leeyahay, ha loo sheego. wallaahi uma wallaahi wabilaahi uma billaah watullaahi uma tullah, ilmahaygu waa 22 caruura. hadday ilaahay baan ku dhaartay caawa dhimanayaan oo la yihahdo way dhimanayaan ee shaqadaysa jooji, ilaahay baan ku dhaaranaya inaanan joojinaynin. mana ka suulaya cimrigayga inta ka dhiman inaan dadka masaakiinta ugu gargaaro aayaadka ilaahay. ma ihi fulay cararaya ma ihi. geeridana nebi maxamed baa dhintay sala allahu calayhi wasalam. nebigaa la caayay calayhi salaatu wasalaam, lagu tilmaamay inuu yahay saaxir, lagu tilmaamay inuu yahay maaragtay kaahin. dad diin sheegana inay ugu tilmaamaan wixii nebiga lagu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. maaragtay kufaarulmaka ama maaragtay mushrikiintii maka joogay waxay nebiga ku tilmaameen in maanta nin wadaada oo diin sheeganayo kitaaba aqrinaya uu yiraahdo maxaan ku yidhahdaa ii sheeg ninkaa hala dilo waa sixiroole
bal iska daaya uu jeclaysto gaala inuu intuu tago yiraahdo ninkani waa terrorist weeyaan wiilkiisana xamar buu isku qarxiyey haddana kambaalu qarxinayaa ninka yiri ilaahay baan ku dhaartay sujuud buu leeyahay gar buu leeyahay kitaab buu akhriyaa saddex nin baa ku qoran warqadda saddexda ninba diin bay sheeganayaan subxaan allah oo maxay rabaan cabdixaq goormay barteen goorma warkiisa soo gaaray ma yaqaanaan maxay ka rabaan waxaa dhibay sheekh waxaan rabaa inaan kutuso muuqaal yar boosaaso magaalada dadka guriga aan dadka ku quraan saarayey wiil ila dhashay oo ingiriiska ka yimi ayaa gaari madow habeen kusoo xariistay xaruntii cilaajku boosaaso ayuu kusoo xariistay gaari madow oo keyga u eg caawa waxay is yiraahdeen sheekh cabdilxaq wuxuu usoo eeday cilaajkii guryihii markii uu kasoo cararo lagu xabadeeyey bal caawa cilaajkuu joogaya dishaan marka waxaa dhacday cilaajkii bay soo weerareen rasaas bay daaqadihii kala dhaceen oo nin wanaagsan oo khayr badan oo aqoon-yahan oo qolalka ka mida jiifay oo guriga deganaa ayay xabadii la dhaceen ninkaasi gacan ayuu maaragtay kaga naafoobay rasaastii ay la dhaceen nimanka aniga moodaya marka waxaan rabaa inaan kutuso xarunta cilaajka ah siday nimanka u xabadeeyeen ama ay dhibaatada u gaarsiiyeen ayaan doonaya inaan kutuso muuqaal afaraad ayaa ii haray oo mucjisa isagana insha allah marka kan waa kii saddexaad hadda aan kutuso insha allah meesha waa xarunta cilaajka ee boosaaso reer boosaaso way wada garanayaan halkani waa guri cilaaja wuxuu ku yaalaa xaafadda alraxma ma aha kii rafya raaxo ku yaalay si fiican u fiiri indhahaagana fur waa daaqadii guriga weeyaan kaas waxaa ku yaala laba xabadood kaasi waa derbiga xabad baa ku taalla halkaana waa laba xabadood oo kale ilaa 3 xabadood baa ku taalla waa xaafadda alraxma reer alraxma kulley way maqlayaan gurigana way garanayaan halkaasi waa derbigiisii wuxuu shabaha kii kale ku yaalay rafya raaxo ma arkaysa hal xabaa ku taallay isagana wallaahi waa dhowr xabo ku soco waa kuwaa rasaastii wuxuu eegyahay gurigii rafya raaxo mana islaha kaasaa ka rasaas badnaa daaqadii waa la furay taleefonkii baa laii soo dhiibay gudahan ku jira aniga waxaan ku rabaa inaan ku tuso dad baa aada ii wacyo kool fara badan baa i wacye halkaa waa gudi waxa waa xabadihii waxaa gacanta ku haya waa rasaastay soo rideen weeyaan xabadihiinana sidaasay noqonayaan waxbana iga qaadi maysaan allahu mawlaana walaa mawlaa lahum yaa ayuha sheekh xaasid sheekh masayray ilaahay baan kaa magan galay subxaana allah waxa waa xabadihii weeyaan waa qol uu jiifay ninkaa masaakiinka ah uu jiifay weeyaan waxa waa xabadihii daaqada lala dhacay xabadihiini fiirsada waryaara hooy hooy sheekh xasadow xabadihiini fiiri bal meeshay ku dhadhaceen laa ilaaha ila allah oo maxaan u dhimanayaa maxaa dadka qur-aan u saaraysaa haye oo adi maa saari lahaa ma saaraysid mana saari kartid xitaa waabaad ka baqaysaa jinnigaad ka baqaysaa iyo sixiroolaha iyo anna waan u bareeray walaasha iyo hooyaday difaac kuwaas waa xabada caleen buu ilaahay ka dhigay xabadahay soo rideen caleen buu ilaahay ka dhigay caleen wallaahi uma wallah caleen qallashay oo geed ka soo gooday ayuu ilaahay ka dhigay halkani waa xaafadda alraxma weeyaan waa xaruntii cilaajka ee boosaaso waa daaqadihii cilaajka taa waa musqushi tana waa waxaas waa xabadihii weeyaan ay ku fureen waxay moodayeen inaan ku jiray moodayeen habeenka inaan joogo aniga ayay moodayeen marka ilaahay uma qadarin oo maxay iga rabaan inay idilaan oo maxay ii dilayaan maxaa dadka u anfacday ummadda maxaad shayaadiinta uga hiilinaysaa dadka ma iska daysid shaydaankooda ha ku jire ummaddu dhaqaatiirta ha ku waalatee faraha ka qaad waxaasaan u dhimanaya aniga ilaahay baa ilaalinaya aniga dowladna uma baahni qabiilna uma baahni wallaahi uma wallah waman yatawakal isagaa igu filan alaysa allahu bikaafin cabdah waa adaan kuu dhimanayaa adiga ayaan kuu dhimanayaa marka haddaadan xishoonaynin waxaad doonto samee sheeqow
in badan baad ku qariyey oon isku dayay ceebtaada inaan asturo cid kalena maaha waxaa hawshaa qabtay waa nimankii lahaa waa sixiroole jinniyuu ka shaqaystaa jinni buu soo dejiyey maaragtay raggii lahaa weeyaan cid kale ha u raadin magacyadoodana waa kuu soo bandhigi doonaa xukuumadda waxay soo qabatay niman kuwa shifooyin kale diidan dadka in qur-aan la saaray ee boqolka dollar ka guranayay hadday yihiin iyo hadday wadaadada yihiinba idinkay idiin taallaa laakiin nimankan xabadeeyey meesha qur-aan saarka habeenka madow iyagu waa warkooda uu soo cadaaday gacantaa lagu soo dhigay ilaahay baa soo qabtay iyagoo dulaysan xabadihiina fiiriya mar labaad xabadihiina fiiriya marka walaalayaal waxaan kuu sheegayaa marka waxaa jiray walaalayaal video kale oo isla magaalada boosaaso kaasoo ahaa weerarkii ugu horreeyey ay soo qaadaan niman kale ah waa sixiroole maaragtay hala dilo niman kale ah weerarkii ugu horreeyay soo qaadeen wuxuu ka dhacay xaafadda ridwaan xawaree boosaaso dee si fiican bay qadka ugu jiraan xaafadda ridwaan buu ka dhacay isagana insha allahu tacaala waa raadin doonaa waana soo heli doonaa habeen 8 saac maaragtay ayay iyadana ahayd habeenka iyada ah ilaahay subxaanahu watacaala guryihiisa markaad guri ilaahay ku makansiiyo ama aad degto inaad xijaabto qur-aan ku akrisaan kugula talinaya guriga qur-aan baan ku akriyey nimankaa waxay isku dayeen inay derbiga kasoo dhacaan xarig bay soo riteen taayar weyn bay ili ka dhigteen way awoodi waayeen nimankaa inay gudaha soo galaan maxaa yeelay alxafid huwa allah waxafidnaha min kuli shayطaan rajiim waxifdan min kuli shayطaanin maarid qur-aanku ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala awood way u yeelan waayeen inay iisoo galaan war maxaa layga rabaa war dad yahow horta faker nebi maxamed maxaa laga rabay sala allahu alayh wasalam maxaa lagu haystay nabiga sala allahu alayh wasalam dadkan maxaa ku kalifay inay dad muslima qof muslima diinti dhiiggiisa banaystaan inay ilmihiisa dhiigooda banaystaan inay aniga dhiiggayga banaystaan maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay xiqdi iyo xumaan qalbiga ka gashay ayaa gaarsiisay heerka inay lacag ku bixiyaan in aniga lay dilo billaahi calaykum su-aal isweydii waxaan u bareeray inaan dadka muslimiinta ka hor istaago cadowga jinniga ah ee ilaahay ka fogaaday kiisa yuhuudka iyo kiisa maaragtay nasraaniga inaan maaragtay ummadda uga gargaaro sixirolaha inaan ummadda uga gargaaro ma mudanahay maanta in lay dilo ma mudanahay in lay dulmiyo mise waxaa mudanahay in lay tabantaabo weli ma aragtay wadaad soomaaliyeed oo usoo banbaxay ummadda sidaan ugu shaqeeyo inuu ugu shaqeeyo ma kufaanayo maxaa adiga hurdada kaa toosiyey markuu cabdilxaq ummadda anfacay uu istaagay maxaad ugu waalatay dumarkuu taataabanayaa waa sixirole jinniyuu ku shaqaystaa awal xaggee jiri jirtay awal xaggee jiri jirtay ha maanaa igu soo baraarugtay ya migu soo baraarugtay haddaad soo kacday miya hadda adoo soo kacay ummadda wax u qabo carab dadka intaad meel u furto ummadda ilaahay qur-aanka saar hawshaan qabanaya qabo haddaad la timaado inaad ummadda anfacdo waa kuu banaynaya anaa kuu banaynaya meeshaan ku shaqeeyaan ku siinayaa ummaddana markhaati baan kaaga dhigayna ummaddu shaqada u qabanaysa shaqada la wareegta adiga laakiin adigana dhimo ummaddana waxba uma qabanayo intaan dhimanayaan sugaya wallahi uma wallah ha waa ku anfacayaa hooyo waxaan anfacayaa walaashayda taan dhalayna waan anfacayaa gabar kastoo soomaaliyeed iyo hooyo walboo soomaaliyeedna waa walaashay weeyaan hooyadana waa hooyaday wiilka xanuunsanna waa wiilkayga weeyaan odayga waayeelkana waa aabbahay iyagaasaan u taagnaanayaa habeen iyo maalin aan kuusii wada dhibaatadii ka dhacday boosaaso habeenka isaga walaalayaal qof walba markhaati buu ka yahay ridwaan 40 daqiiqa saacaddan fiirinayay qolkii aan ku jirnay wuxuu noqday naar dhimbilo ah waxaa gubtay daahiyadii alaabtii armaajada qolka jiifka taalay way soo dhacday aniga xaaskayga gobashaan ku jiifnina waxaa kala gooyay rasaas baa kala goysay bal walaalayaal waxaanu niyeysanay habeenkaa inaan aakhiro aadayno laakiin ilaahay ma oran subxaanahu wa tacaala 4 jir aan dhalay baa gacanta xabad looga dhuftay
ilmahayga markaan u danqaday waxuba habeenka amaan haysan awlaadayda markaan u danqaday waxaan go-aansaday inay nimankaa idilaan bal ilaahay subxaanahu watacaala ka u horeeyaan ku nafbaxo albaabkii baan ka soo baxay anoo ilaahay maaragtay weyneynaya ashahaadanaya ilaahay wuxuu gacanta ii geliyay kii ugu horreeyay in laka taagna ayaan qabtay markiiba ilaahay subxaanahu watacaala rucbibu ku riday waxaana soo gurmaday maamulkii puntland xukuumadda maaragtay boosaaso oo aan kala harin ayaa soo gurmaday ilaahay ha ka sawaabiyo saaxiibkay jakanaf oo ahaa tali ku-xigeenka qeybta waa ninka labada mar weerarada ka dhacay 3 mar boosaaso 2 mar waa ninka iisoo gurmaday ilaahayna subxaanahu watacaala ha ka thawaabsiiyo weligeyna ma iloobayo ninkii anoo dusha uga fadhiya dushan uga fariistay anoo dusha uga fadhiya ciidankii yimaadeen ninkii waa laygala wareegay waa la wareystay wuxuu leeyahay 16,000 oo dollar baa naloo ballan qaaday 8,000 waana la siiyey 8 baa noo dhiman waxaana maaragtay naloo soo diray sheekh cabdilxaq oo keliya maaha sheekh cabdilxaq iyo caruurtiisa inaan dilnaa naloogu soo talagalay yaa ka mid ahaa yaa kula socday ciidanka hebel 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 raggaasuu tiriyey bal walaalayaal nimanka iyaga ah marka la doono lasoo qabtay waxay sheegeen inay soo direen niman diin sheeganayo wadaada ah laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llahi sala allahu alay wasalam okay muxaadara lagaa dhagaystaa habeen iyo maalin kitaabaad akhrisaa habeen iyo maalin waxaan oran karaa qalbigoodii xumaanta kasoo daahirtay waxaan aaminsanahay wacdiga iyo muxaadarada ay akrinayeen in malaria laga qaaday wacdigoodii waa malaria laga qaadayba because waa khaayin weeyaan qalbiga waa qalbi ku dhiig le qof walaalkiisa dhiiggiisu banaystay nin aan waxba u galabsan buu doonaya inuu dilo war maxaa kugu kalifay war maxaa kugu kalifay war soo waxaan qur-aanka saaraya hooyada ma aha war soo aabbaha ma aha war soo axad soomaaliyeed ma aha war maxaa kugu kalifay dhiiggayga inaad banaysato war maxaad u jeclaysatay in ama aan la xabsi galo ama aan dhinto maxaad ku falaysaa waa dhintay maantaan dhintay ama caawaan dhintay maxaad faa'iidaysaa ma karaamada iyo fadliga ilaahay ugu manaystaa kugu soo wareegaya laa 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 hayhaata hayhaata habarteeday ka tahay bay dhaan reer koonfurka habarteed waxba ka heli maysid anna ka tanaasuli maayo inaan ummadda anfaco bal iska daaye waxaan isku dayaa meel walba axad soomaaliya uu joogo sidaan hadda reer kambaala usoo anfacay inaan ummadda muslimiinta meeshay joogaan ugu tago kaaqadara way dhuudhuumanayaan car hal nin oo usoo bareera oo ii yimaado ila hadla ma arag yaa awood u leh kee weeye ninka inta ii yimaada ee dhihi kara waxaan maxay yihiin maba awoodaanba because munaafiqu ma hor istaagi karo qof ishuba ma ogtahay maxay ugu iman weysay maxaad xabadda ila dhacaysaa wallahi baanan ku qarinayn in badan baan damca inaan ku qariyo laakiin san hadda beejka uga sheegayo ayaan berrina u sheegayaa ninkuu ahaa hadda mishinka ka dhacay kambaalana culummada ka dambeysay waa sheegaya ama rumaysta ama ha rumaysanina waxaa ka mid a kuwa kitaab hadda waxaa laga yaabaa saacadihiya qaarkood inay kitaaba akrinayaan oo ilma ag fadhiyaanoo duruus akrinayaan maxaa lagaa faa'iidaya qof muslimaad doonaysaa inaad dishe ya waxay ku gaarsiisay inaad qof muslima dhiiggiisa qurquriso ood jeclaysato inuu qofka dhinto ayaad go-aansatay marka walaalayaal sidaa ula socda arrinku halkaasuu maraya caawa 3 video baan ku tusay taleefano iyo codad laga duubay ayaan hayaa oo nimankaasi ay igu tashanayaan niman waaweyn nin hadda caalim ah oo culummada waaweyn ka mid ah codkiisiioo duuban ayaan ummadda maqashiin doonaa haddaanan de waan istiqaaraynaya hadday istiqaarada iga celiso waa gooni oo le ninkaasi dalka ma ka saaraysaan oo ninka la hadlay uu leeyahay dalka maxaa looga saaraya ninka qur-aan buu akrinayaa ilaahay baan ku dhaartay ninkaasi waa sheekh haddaydan dalka ka saarin sujuuddan xabad ugu dhufanaya sujuudda intaan gacantayda kusoo qaato bistoolad ayaan sheekh cabdilxaq sujuudda xabad ugu dhufanaya waa recording wayaan ninkii ula hadlayaa duubay haye maxay kula tahay
743 qofood oo Soomaaliya ayaa ku jirta shaqada aan hayana wad aragteen warbal dadka indhaha la eeg uryaamiinta eeg ilmaha yaro cadiban eeg waxaan umada u qabtay eeg taariikhda dib u baar shaqadaan hayo soo baar hay shaqada anigaan hayo fiiri ilaahay wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala in